السلام الله عليكم سوري wada asxaabta qaaliga ah waa Xaydar waxaan rajeynayaa inaad wanaagsan tihiin dabcan isbuucan insha Allah bilaabi doono isbuuc lacago badan ay dhaqaaqi doonaan sidaan rajeynayno sida isbuuci horeba dhacday waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysteen caawinta aan caawinayo dabcan asxaab badan way ka faa'iidaysteen masha Allah sida aan la socdo waxaan rabaa inaan idin share gareeyo dabcan lacagaha aan isbuucan rabo inaan ka trade gareeyo dabcan lacago isbuuci hore way jireen dabcan longii aan ugu jirno sidoo kale lacag kale oo aan iyadana fursad ka raadinayno dabcan markii fursad na siiyana insha Allah aan ka mataqaanaa ka faa'iidaysanayno ayaa jiro dabcan lacagaha DX2 ay ku jirto dabcan waxaa laga rajeynayaa fursad sidaa laga rajeynayaa dabcan inkastoo lacagaha yani NZD USD iyo weliba maxaa la dhahaa lacagtan ay dhahaan AUDSD isbuuci dhaweed aan qaadanay iyagana waxaa laga rajeynayaa inay jihadaas halkaa soo aadaan insha Allah saa ogtihiin dabcan waa haddii aad videoga hore daawatay dabcan hadaan tago 1 hour time frame-ka structure qurux badan ay ku jirtaa dabcan oo aad u qurux badan oo noo sheegaya jihadaas halkaa isbuuci dhaweed baan saaid uga hadlay lacagtan oo xitaa update ka siiyay dabcan ay hadda retrace wado dabcan ay tegi karayso waxaa laga yaabaa inay halkan tagtaa laga yaabaa dabcan correctionka ay dheeraysato kadibna ay soo dhacdo ama in already ay retrace ku samayso waxa loo halkan oo structure-kan ay retrace ku samayso waayo already waxaa ujeedaa structure-kan in la buuxsaday dabcan in ay soo dhici karayso iyadana macquul waaye dabcan oo jihadaas halkaa socdo haday jiha sale ku siiso means lacagihii kale jiho baya ayay wada aadayaan lacagaha yani USD-du ay ugu dambayso sida NZD USD iyo AUDUSD iyadana saasaan ka sugayna dabcan sidoo kale USD CHF lacagtan ay dhahaan iyadana USD CAD baan leeyahay waxaa halkan nooga muuqda USD CAD hadaan eegno waxa la dhaho daily time frame-ka dabcan structure ahaan inaan halkan ka sugaynay oo dabcan ilaa halkan aan soo falanqeynay dabcan hadda la rajeynayo insha Allah in all the way lacagtan waa down sell dabcan in ay down soo aadi doonto isbuucan waxaan ka rajeynaynaa insha Allah in meelahan ay tagto dabcan haddii tegi weyso dabcan in ay soo dhacdo dabcan oo halkan dambe ay naga siiso wax la dhaho flag waayo haddaad aragtid waxa la dhaho lacagta DX-ta yani jiha sell na siinaysa lacagtana waxayna siinaysaa wax la dhaho jiha sell oo waadixa dabcan waxaa laga yaabaa inay correction kusii socoto hadday correction kusii socoto aan ku yidhi double topkan ay tegaysaa aan ku yidhi double topkan hadday tagto means lacagtan xaggee tegaysaa iyadana waxay tegaysaa si aan nii sheegayo dabcan structure-kan ay dhamaysanaysa xaggan ku jira dabcan saad ujeedid kadibna iyadana jihada silkaa soo aadaysa iyadana waan eegaynaa dabcan waxay samayso qaabka u dhaqanto iyadana waxaan ka raadinaynaa waxa la dhaho jiha sell sidoo kale JBP AUD sida lacagtan oo kale lacagtan JBP AUD maxaan ka sugaynaa waxa la dhaho jiha sell aan ka sugaynaa oo qof waliba uu ogyahay dabcan lacagtan isbuucan ay soo dhici doonto dabcan waayo isbuuci horaan dabcan meelahan ka falanqeynay levelka joogtay qaab correction ay ku dhaaftay haddaad egtid waxa la dhaho low time frame-ka dabcan waxaa laga rajeynayaa iyadana insha Allah in ay all the way ay soo dhici doonto laga rajeynaya dabcan oo ay jihadaas halkaa soo aadi doonto JBP iyadana CHF structure ahaan hadaan ku tuso waxa la dhaho daily time frame-ka iyada waxaad ujeedaa lacagtan hadaan tuso daily time frame-ka waxaad ujeedaa in lacagtan expanding ay ku jirto dabcan halkan ay ka samaysay waxa la dhaho structure-kan already structure-kan la jabsaday haddana retrace lasoo sameeyay laba midkood samayn karaysaa lacagtan in ay already meeshan ay ka samayso waxa la dhaho halkan ay jebiso dabcan meeshan ay jebiso flag aan halkan ka aragno kadibna all the way aan jihada ilaa jihada kale structure-kan aan qaadano iyadana aan jihada abka u qaadano waayo hadda waxay ku jirtaa wax la dhaho structure-kan ay dhamaystay dabcan waan la soconay markii dhamaysanaysay lacagtan structure-kan waxaa dhacay already structure-ka waa la dhamaystay lower time frame haddaad tagtid wax la dhaho 1 hour time frame haddaad tagtid dabcan kan iska qaado waxaad ujeedaa 1 hour time frame-ka in structure qurux badan lagu jiro dabcan oo hadda aad ujeedid descending plus double bottom hoose la yimi awalka hore structure-kana meesha ku jiray dabcan oo dad fiidiyaashii hore dib ugu laabatid waad arkaysaa dabcan qaab correction lagu yimi dabcan
sidoo kale ma dhihi karayna halkan structure baa lagu yiri no structure meesha kuma hoos jiro laakiin xaggana structure ku jira kala celiya dabcan lacagtan oo jihada abka u kaxeeya dabcan waa structure oo steema oo reading ab sidoo kale maxaa laga yaabaa in soo dhac baa laga yaabaa halkan timaado dabcan qaab noocan kala structure flag kadib all the way iyadana ay sii dayso oo ay ab aado iyadana macquul idan lacagta qaab noocaas ka suga sidoo kale AUD CHF sidaan inii sheegayo dabcan iyadana lacagtan waa lacagaba waxaa laga yaabaa hadda structure-kay samaysay in meelahan ay timaado oo structure-kan ay buuxsato qaabkay ku timaado la arko kadibna all the way jihada bayga lacagta looga faa'iidaysto ama waxa haddii yacni halakan hadda waxay ka samaysay waxa la dhaho saddex taabasho waadixa haddaad ujeedid nitroku xaggu noqonaya haddii qaab inversely ku timaado means waxaa laga yaabaa in double top hell kasoo doonato kadibna all the way ay ab sii aado iyadana qaabka uga faa'iidaysta dabcan sidoo kale NZD-JPY waa lacagtii dhahaan iyadana waxaan ka sugaynaa wax la dhaho jihada abka ah inkastoo hadda ay levelka ku socoto qaab correction haday ku tato waxaa laga yaabaa inay soo dhacdo structure weyn meeshan ka samayso kadibna all the push kariyo waayo structure-kan waa dhammaystiran yahay waxa la dhaho saddex taabasho waadix hadda ujeeda halkan structure-kan waa dhammaystiran laba taabasho plus double button hoose qaab correction ku yimid means lacagtan in ay already halka aado waa laga rajaynaya insha allah waa laga yaabaa halkan xitaa inay correction qaab noocan ku sugto haddii ku socoto means tigtoono means waa inay structure laagisa ay ku siiso ay jihada bayga ku aadayso sidoo kale CHF JPY CHF iyadana spending aad u qurux badan ay ku jirtaa dabcan saad ay qurux badan tahay caadi ahaan haddaad eegtid waxa la dhaho waayo lacagtan maxaan ka sugaynaa lacagtan USD CAD maxaan ka sugaynaa jiha sela maxaan ka sugaynaa CAD CHF iyadana jiha baya ka sugaynaa dabcan structure ahaan iyagana ujeedaa hadaad eegto waxa la daily time frame-ka in structure-kii weyna ay dhamaysatay squeeze-ka already la jabiyey structure-ka weyna retest lagu sameeyey already in ab la sii aadayo iyadana yacni fursad aad u qurux badan baa ka muuqata waayo double bottom-ka hoose maxaa la Barspan Wimi structure baa halkan laga sameeyay hadaad eegto waxa la dhaho lower time frame-ka dabcan waxaad ujeedaa halkan xitaa even waa dhihi karnaa double bottom hoose waa dhihi karnaa oo triple bottom hoose waa dhihi karnaa iyadana qaab noocaas oo kale maxaa laga rajaynayaa haddaan caadi ahaan forecasting ku siiyo hadda waxay joogtaa wax la dhaho waxay samaysay wax la dhaho structure-kan qaab noocan ay samaysay waxaa laga yaabaa inay hoos soo aado kadibna structure kale kadibna another structure kale kadibna all the way ay lacagtan ay sii dayso iyadana qaab noocaasa ka rajeeyay waxaan rajaynayaa inaad fahanteen dabcan lacagahan afartan lacagood waa lacagihii isbuuci dhaweyd aan loan kugu jirno insha allah waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidi doontaan wixii abriidana insha allah waa inoo arbacada aad u mahadsantihiin asxaabta qaaliga dadka qaarkood telegramka yacni dadka qaarkood waxaa jira telegramka yacni SMS by private kusoo diraya dabcan inkastoo aan iska mashquulsanahay waxaan rajaynaya insha allah inaan su-aalahaad qabtaan in aan insha allah zoom ku siin doono dabcan oo aan habeen soo qaban doono insha allah wax su-aalaha yacni aad qabtaan ay weydiin doontaan insha allah waa inoo insha allah isbuucan